الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رب العزة جل في علاه: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عشركي بقولي سقاشن يا أفراد، وحنا كميدة عشرة النور سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم لبي اللفاتنا يدود بوك كوبنية آيات شنية اللفاتنات بوك باللابناي كان ميدا من سورة فصلت آيات اللي فرتنات نواكو يقياي من السورة نفسها مثل سورة فصلت كميدا آيات اللي فرتنات العشر كودا بيسانا وكل مانا يجوز كافر اللفاتنات كان ميدا صدن كي جزء القرآن الكريم كأوكا كومي. سورة فصلت وسورة مكية هادنا وطابنا يسو قضاء لغيسا قضايا توحيد. قال تعالى: فبوحو يري وقيضنا وحن سببني صلدنا وحن قدرني لهم حق ديديادا قرناء كوال حريرة من الشياطين كمذ وحاول يقفكم مركوكم ياهي وإيمان كيسية ضاعة كيسية تغوذا كتوسن ياهي شيطان ميلوس ومرمري، لكن مركا قفك ودين تكبعه شيطان باكوسو يا البابك. وحين كسو مرنا في سورة العلف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. آيات كيبا التي وافعنا آيات كيبو كدحبعي مركبا شيطان باقبصدي. وقيضنا لهم قرنات بين لمت كل الحق يديده أي وحا لغو سلد الشياطين يرجنا كوبا مركا هقامنا أي باطل كان أقرحنا أي حقا أوفى الحمينة إذا قبل هذا الوارك دونت. وقيضنا وحا نقدرني لهم للكفار كوي حق ديدي قرناء كوال حريرة من الشياطين كمذ فزينوا قرآن ذي الشياطين تقرحيي لهم للكفار قال ذي وحي قرحيين ما وحى بين أيديهم إلى قهرت هذا الجري ووحى وهرت هذا الجري آخره كل بعضي هي جزء هي جنية عذاب مثل مجرى أي غشاكين وما خلفهم وحي دنبي أي كلانا إضافانا دنبي وما إذا انقلين بيكو يرادين مركا الأول با شيطان كي يمدو وحوى البو وناك بدنا وأوفى الحميي وحلا أركو فالحن وهو قرحيي وحق تفدد وحا واجبي عليهم قال كركو القول أريد لاملانا جهنم في يقعد البدن كل حجره كوان كفار قراشة أما أمدة قال لا بيكالية ماها أمدي وحرنا لمدو وماذا فربدا أي كل حجران ومدى سوقت خلا تكتي من قبلهم ومدى انكور تكتي كان مذا من الجن والإنس اللبضة إنهم كوان يومدي كوريي كانوا وحين نغذين خاسرين كوان كاري كل عظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا حداودي مشركين القرآن كحولك الله هاي مركا أركان رسولك عليه الصلاة والسلام oo ku soo socda waa ay garan jireen inuusan dankana ka lahayn
wixii diina hadba soo deguu gaarsiin jiray iyaguna markay arkaan garanayaan qur-aanka inuu ku akrinayo tacaaliimta isisii jireen waqti wa qaala aladiina wixii waxa ay ku hadleen kafaruu gaaloobay laa tasmacuu odayaashoodiiba amarkaan bixinaysa waxa la amrayaana waa dadkii weynaa ee dadbadnaahaw laa tasmacuu haddaad tihiin dadweynaha maqlina lihaada alqur'aan qur-aankan korkiina lagu akrinayo ha dhegaysanina oo sidee yeela walqow qayli oo buuqoo hugma oo fooriya sacab iyo qayla la ysku daraya fiihi fi lqur'aan markuu qirada bismi illaahi yihaa idina buuqa bilaabo kolkaa idinkuna buuqdaan isna uu qur-aanka akrinayo lacallakum waxaad idinku mudantihiin taglibuun inaad ka raysaano mar inaan la maqlayn hadduu arko isagiina buuq dhagaha lagu jabiyo wax akrin maayo kolka akrin la-aanta aan qur-aanka la akrinin ayay guur u yaqaanaan ama qur-aanka hadday madaxa baneeyaan oo dushooda lagu akriyo si ayan iyaga ogeyn ayuu qalbigooda u saameynayo kolkaas saameyntaa qur-aanku qalbigooda saameynayo ayaa u guul daraa inaan qur-aanku dhagahooda maqlin ayaa u guula walqow hugma fiihi qur-aanka lacallakum mudnidin taglibuun inaad maxamed iyo raggiisa ka adkaataan ilaah baa taa ka jawaabay subxaana waa gaalnimo heerdhaaf markaasaa eebba yidhi falanudiiqanna waa dhaaranayaa eeb sharaftaydan ku dhaaranaya inaan nudiiqanna dhadhan siinayno aladiina waxa kafaruu xaqa diiday ee xataa inay maqlaan diiday cadaaban ayaan dhadhan siin doonaa shadiidan daran cadaab ayaan xamili karin ayaa la dhadhan siinaya ama abaalmarinta la abaalmarin doono waxay noqon doontaa aswa aladii kaanuu yacmaluun wixii ay sameeyeen wixii ugu xumaan badnaa ahna intay gaalnimo iyo xaqdiiddo dhaafeen inay qur-aanka buuq ka horgeeyaan tanaa lagu abaalmarinaya walanajziyannahum waa abaalmarin doonaa aswa aladii shaykan u xumaan badan ay kaanuu fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya oo hadduu qowl ahaa laa tasmacuu lihaada alqur'aan saasay u hadleen hadduu ficil ahaana xaqiibayba diideen kiibaa lagu abaalmarinaya kiibaa eebba tilmaamay subxaana faqaala caza min qaa'il daalika cadaabkaa daran iyo waxay faleenkan ugu xumaan badan in lagu abaalmariyo ayaa jazaau acdaa illah eebba weyne cololyaalkii abaalgudkooda waa ka annaaru waana naar abaalgudka xolalka eebba lagu abaalmarinayo lahum waxay leeyihiin xolalka eebba gaalo wey fiiha naarta gudaheeda daarulkhuldi aqal lagu waarayo ayay leeyihiin jazaan aqalkaa lagu waarayo naarta ana abaalmarin wey bimaa baa lagu abaalmariyey kii ay kaanuu fi dunyaa adduunyada hadday noolaayeen ku ahaayeen biaayaatina aayaadkanaga yajxaduuna kuwa diido ay buuq ka horgeyn jireen markaa jinni iyo insiba wixii xaqdiidyo ah say u dhammaayeen naar gudaheed baa lagu ururiyey markii naar gudaheed lagu ururiyey ayaa iyagood mooda waxooga inay rabbi u cudur daaranayaan ayaa waxay ilaah ka codsadaan in la tusiyo gaf la gafo iyo gardarre la geysto labadii ugu horreysay markaa labada gaf iyo gardarre ugu horreysay ibliis iyo qaabiil dembi eebba lagu xaasiyo ee samada ka dhaca ibliis baa u horreeyey dembi dhulka ka dhaca ee eebba lagu xaasiyo qaabiil baa u horreeyey waxaa dembi ah labadaa waayeel kolkaa wixii jinni iyo insi naarta ku jiray ayaa rabbi ka baryaya in qaabiil iyo ibliis gacantooda la geliyo say yeelayaan naar baa lagu wada jiraa waa ku tumanaya hoosta intay iska xijiyaan ayay ku tumanayaan qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waqaala aladiina wixii waxay yidhaahdeen kafaruu xaq diiday oo jinni iyo insi ah rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow adduunka intay ku noolaayeen rabbanaa waa laga waayey kolka markay xaggaa tagaan bay rabbanaa leeyihin rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow arinaana tusi alladayni labo adalaanaa na lumiyey min aljinni ibliis wey walinsi qaabiil
labada oday ee gaf iyo gardarro la gala ugu horreysay allow labadaana tusi waa kuwa ka nadha ilaan laysma yaqaan goormaa ibliis aha yaa bartiisa arkay lama yaqaan yaa qaabiil arkay lama yaqaan waxaase lala socdaa inay edab darrada bilaabeen waa kaxaa waa aynu sheegayno kolka rabbi ow ma naqaan adaa yaqaan labadiina tus see yeelaysaan najcalhumaa waxaan yeelaynaa taxta aqdaamina lugahanaga hoostooda waa ku tumanaynaa bal hadaa baanu ku taaganahay korkoodaan isku taagaynaa kolkaa korkooda intee qof buu qaada dadkay lumiyeen cidduu ka badan yahay intee qof bay qaadaa najcalhumaa aanu yeelno taxta aqdaamina gomadahanaga hoostooda aan yeella marna tus liyakuuna ha ahaadeen min alasfaliin wax naar gala wax ugu hooseeya bal iyaga ha noqdo siday dembi ugu horreeyeen naarna ha ugu hooseeyeen saasaa gaaladu tiraahaa waqayadnaa waxaanu ku dirnaa lahum kuwa xaqa diiday quranaa'a kuwa la xiriira ahna min ashayaadiin shaydaan yaalo ka mida waxay lamid tahay fii suurati zukruf waman yacshu can dikri araxmaan nuqayid lahu shaydaan fahuwa lahu qariin kaasaa la xiriira oo hogaaminaya oo luminaya siday wax u maamulaan shayaadiinta wa inahum layasuduunahum can isabiil intay jidka xaqaa ka qalloociyaan ayay ugu sheekaynayaan inay quman yihiin wayaxsabuuna anahum muhtaduun goormay ogaanayaan xataa idaa jaa-ana eebba markay qiyaamo ugu tagaan qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayn fa bi'sa alqariin allah ku yidhaahda walan yanfacakum alyawma id dalamtum adduunka haddaa dulmi isku waafaqdeen xabasho maanta wax idinkuma taal annakum fi lcadaabi mushtarikuun waa wada naarantihiin waqayadna waxaan ku dirnaa lahum xaqdiidyada quranaa kuwa la xiriira min ashayaadiin kamida kolkaa maxay sameeyaan fazayanuu shayaadiintii baa qurxisa lahum xaqdiidyada maa wixii bay u qurxiyaan bayna aydiihim hortooda yaalay oo inaan jazo iyo qiyaamiya waxaa jirin ayay u sheegayaan wamaa khalfahum wixii gadaashooda jirayna waxba inayan halayn ayay u sheegayaan markaa dhan walbaba waa kala hadlaan kolkay wareeriyaan waa duubsadaan xaqa markaa waxaa waajiba calayhim labada guruba kuwan shayaadiinta ee baatilka qurxisay iyo kuwa dadka ee loo qurxiyey dhammaantood korkooda waxaa ku waajiba alqawlu ereygii eebba uu yihi laamla-ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin fii umamin fii jumlati umamin uma tiro badan iyagoo ku dhex jira ummaddaasoo qad khalad hore u tagtay min qablihim kuwaan ummatu maxameda hortood bay adduunyada mareen kuwaasoo min aljinni kamida iyo walinsi dad inahum waxay noqdeen labada qoloba intoodii xaqa diiday ee uslumaysay kaanuu waxay noqdeen khaasiriin kuwa hogo baawa wa qaala aladiina waxay yidhaahdaan wixii kafaruu gaaloobay wa arwaasa dadkii iyaga taabicu ah waxay u yidhahdaan laa tasmacuu ha maqlina lihaada alqur'aan qur-aankan ha dhegaysanina xataa yu'asira fii quluubikum yuusan laabtiina saamaynin idin duubsanin mabdiina idinka qalloocinin ee dhegahaba yuusan gaarin saa yaalla walqow hugma buuqa oo qaylya fiihi fi lqiraa'a qur-aanka haddii la akrinayo idina buuqa kolkaa sacad iyo foori iyo qaylo iyo or intaasaa la ysku darayo lacallakum mudnidin inaad taglibuun ka raysaan ninkan maxameda ee qur-aanka akrinayo saasay yidhaahdeen ilaah baa taa ka jawaabay falow wallah magacaygaan ku dhaartay nudiiqana inaanu dhadhansiino aladiina waxa kafaruu xaqa diiday cadaaban yaanu dhadhansiin doonaa shadiidan daran walanajziyanahum inaanu abaalmarino aswa aladii kii kan u xumaan badan ayaan ku abaalmarinaynaa ay kaanuu fi dunya adduunyada ku ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya min alqawli waalficli labadaba daalika cadaabkaa daran iyo xumaha lagu abaalmariyeyba jazaa-u acdaa-illah eebba weyne cololyaalkiisa abaalgudkooda ah eebba cololyaalkiisa alkufaar gaalow kolka alla qofka caasiyey ee beeniyey dhibaatuusan alla yeeli karaan jirin wax lama harin colaad buu muujiyey saa inuu rumeeyo oo raa uu diiday
wixii uu ku galladaystay nicmata aliijaadi waalimdaadi ayuu dafiray. annaaru naar weeye abaalkood lahum kuwa xaqa diiday waxay leeyihiin fiiha naarta gudaheeda daarulkhuldi waarid la waara aqalkeed ayay naarta ku leeyihiin aqal lagu waarayo oon gaarna loo dhaafay jazaa-an abaalgud weeye aqalka bimaakii ayaa loogu abaalguday caqdiidyada ay kaanuu fi dunya hadday adduunka ku noolaayeen ahaan jireen biaayaatina innaga eebbaweyne aayaadkanaga hadday kawni ahaayeen amay qur-aan ahaayeen amay mucjizo ahaayeen intiiba yajxaduun ay diideen sababteed ayaa aqalkaa loogu abaalmariyey. haddii meeshii la geeyeyna waa kuwa kan waqaala aladiina wixii waxay ku hadlaan kafaruu gaaloobay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow arinaa na tusi alladayni laba na tusi adalaana na lumiyey ee gaf iyo dembi la galo bilaabay min aljinni ibliis waalinsi qabiil najcalhuma aan labadooda yeelo taxta aqdaamina annaga gomadahanaga hoostooda aan yeelo liyakuuna ha ahaadeen min alasfaliin kuwa naarta ugu hooseeya ha noqdeen ee marna tusi wey. ina aladiina qaaluu rabbuna allah markii laga sheekeeyey acdaa-ullah eebba colalyaalkii iyo cadaabkii loogu talagalay in dadkii fiicnaa laga sheekeeyana waa lagama maarmaan. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina akhyaar qaaluu yidhi rabbuna allahu bay adduunka ku yaraadeen rabbuna allahu waxay la mid tahay laa ilaaha ila allah ilaah keliyatay rabbinimo u qireen wixii kalena waa ka afiyeen. ina aladiina dadka qaaluu yidhi rabbuna annaga rabbigana allaahu macbuudka xaqaa wey tawxiidkii wey uma ka gadaalna istiqaamuu toosnaaday oo tawxiidkaasi ku toosnaaday. istiqaamadu yaa bay leedahay. sufyaan ibni cabdillaahi thaqafiy saxaabi jaliilow ayaa yihi qaala qultu yaa rasuula allah ilaah rasuulkiisiiyo qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axada bacdak wa fii riwaayatin hayrak mas'ale aanan qof damba weydiin macnaa war kooban oo i anfaca ii sheeg. qaala rasuulka wuxuu ku yihi qul aamantu billah uma istaqim labadaan uu sheegay rabbuna allah uma istaqaamu. imaamu tirmidi saxiixu muslim baa saa u wariyey. imaamu tirmidi wuxuu yihi su-aal kalena wuu weydiiyey maa akhwafu maa takhaafu calay waxaad iiga cabsata maxaa ugu daran rasuulku carabkiisii buu qabtay oo yihi midkaasaa ugu daran istiqaamada. tafsiirkeeda aad baa carada looga badiyey. imaamu lqurdubi 10 qowl in ka badan ayuu asxaabtii iyo salafka sheegay oo istiqaamada lagu fasiray laakiin 10kaa qowl way isu tegayaan. waxaa ururiya istiqaamadu waxa wey alictidaalu calaa taacati illah ilaah taacadiisa lagu toosnaado caqdan xagga niyada wa qowlan xagga hadalka wa ficlan xagga samaynta uma dawa sidaa la daa'imo wey. istiqaamadu waa ka kolka dadka labadaa isku darsaday tawxiid iyo istiqaama dadka tatanazalu waxaa degta calayhim korkooda almalaa'ika malaa'ig baa ku degta. imaamu wakiic sheekh shaafici shiikhiisii wuxuu leeyahay marka ay soo degayso waa 3 goor cinda almawti wa fi lqabri kolka qofka uu dhimanaya adduunkaba uu joogo oo nafta ayaan ka bixin markaa malaa'igtu waa u imanaysa. qofkii markaa nafta ay ku jirto laakiin adduunya isaga ay kala baxayaan markaa bishaaradan ayay ula iman anlaa takhaafuu walaa taxsanuu wa abshiruu isagoo faraxsan oo aayatiinkiisiiyo meeshuu ku socdo ogaaday bay naftu ka baxaysa. qabrigii baa la geynaya. qabrigii waa meel cusub oo mugdi oo qaab daran haddana qabrigii malaa'igtii baa ka daba tegaysa. anlaa takhaafuu walaa taxsanuu wa abshiruu bay ku odhanaysa. marka saddexaad qabrigii baa laga baxay qiyaamaa la tegay. qiyaamadii laga baqaayey ayuu qofkii u jahaysay xabaashiibuu ka baxay haddana markaasay imanayaan anlaa takhaafuu walaa taxsanuu wa abshiruu
markaa saddexdaa goor ee qofka ugu baqdin iyo khatar badan yahay ayay bishaaradan u iman tatanazalu waxaa degta calayhim dushooda ku degta cinda almawti wa fi lqabri wa cinda alqiyaama saddexdaa goor bay malaa'ig dushooda kusoo degaysa malaa'igtu maxay la soo degi almalaa'ika malaa'ig baa dushooda ku degta erayadan ay la iman allaa takhaafuu waxaan hortiina jira ha ka baqina ilaa ridladii iyo janno iyo dembi dhaaf iyo xurulciin iyo barwaaqa idinka horraysa baqdin meel dhiga walaa taxsanuu hana murugoonina wixii aad ka timaadeenna beliya baas midna noqon maayaan waabshiru ku bishaaraystay kula degta biljanna ku bishaaraysta allatii janno kuntum fi dunyaa adduunka haddaad ku noolayn aad ahaan jirteen tuucaduuna kuwa loo yabooho tiibaa tanow markaasay gacaltooya garabgal u sheegaan malaa'igtii baa le naxnu annagaan malaa'igta ee idinla hadnayna intaanun idiin bishaarayno idinka dhaqaaqi mayno ee ilaad aqaladiinnii ka tagtaan jannada annagaaba idin garab taagan awalna adduunyada annagaa idin garab taagnay kolkaa inay tahay xikaaya can illaahi caza wajalla suuragal ama waa malaa'igta naxnu annaga eebaa haddaad tiraahi a awliyaa'ukum dadkiinan aliimaanu walistiqaamatu isku darsaday aniga eebaa ayaa idin weli aha oo haddaad noolaydeen iimaanka iyo daacada iyo tawxiidka anaa idin waafajiyey shirki iyo shariya shaydaanna idinka badbaadiyey fi lxayaati nolol gudaheed addunyaa hoosaysay iyo wa fi laakhira qabriga haddaad tagteen iyo haddaad dhimanayseen iyo haddaad qiyaamo joogteen intaba aniga eebaa ayaa idin maamulayey walakum waxaad leedihiin fiiha aakhire gudaheed maa wixii tashtahi ay jeclaysato anfusukum idinka nafafyaalkiina waxay jeclaysato ayaad leedihiin walakum waxaa kalood leedihiin fiiha jannada gudaheeda maa tadacuun waxa aad dalbataan oo dhanna idinka iskale waxaasina waa nusulan maba darban yahay martisooryo wey la darbay waxaana laga darbay min ghafuurin alla dhaafid badan xaggi raxiimin mu'miniinta u naxariis badan ayaa laga darbay sidaana waxaa loo yihaa dadkii fiicnaaye aliimaanu waalistiqaama labadaan isku darsaday ina aladiina akhyaar qaaluu yihi rabbuna axadka naleheenna abuureenna maamula allaahu eebba weynow axad kale oo noo rabbi ah ma jiro laa rabba lana hayrahu walaa ilaah lana siwaahu sidaa dadka yidhi ee tawxiidka qiray suma ka gada istaqaamu tawxiidka ay qoreen ku toosnaaday een dhanna uga lexow tatanazalu waxaad degi doonta calayhim korkooda almalaa'ika malaa'ig eebbaa dushooda ku degta goortay naf baxayaano cinda almawti wa cinda alqabri wa cinda albacthi waannushuur waxay malaa'igtu ku tira anlaa takhaafuu ha cabsoonina dembi dhaaf iyo ridle eebbaa idinka horraysa iyo janno wax laga baqo hore idinma jirow walaa taxsanuu ha murugoonina calaa maa faatakum wixii idinka tegayna ha ka murgina waabshiruu bishaaraysta biljanna bidukhuuli iljanna janno gelideed ku bishaaraysta allatii jannaad kuntum fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jirteen tuucaduuna kuwa loo yabohow naxnu annaga rabulciza waljalaal ayaa awliyaa'ukum idin weliyaala ama hadday malaa'igta tahay naxnu annagaan malaa'igta ee idin bishaarayna ayaa awliyaa'ukum walaalihiina oo garabka iyo gacanta idin hayna ilaa guryihiinii jannada anu idinku sina wey haddana haddii jannada la tago malaa'ig kale ayaa ku soo dhoweynaysa filxayaati nolol gudaheed ayaanu idinku ahayn walaalo addunyaa hoosaysay wa fil aakhira aakhira gudaheedii intaba weli ayaanu idinku nahay oo malaa'igtuna waa u wehel rabbuna waa maamulaya walakum waxaad leedihiin fiiha aakhira gudaheed maa wixii ay tashtahii jeclaysato anfusukum idinka nafafyaalkiina walakum waxaad leedihiin fiiha jannada gudaheeda maa wixii tadacuuna aada u yeerataano dalbataan nusulan martisooryo ayaadna u leedihiin min ghafuurin alla dhaafid badan litaa'ibiin inta dembiga ka toobad keenta alla u dhaafid badano raxiimin bilmu'miniin inta rumaysee raacda u naxariis badan
allaha xaggi ayaa martiqaadka kan laga dalbay ee la idiin diyaariyey waman xasanu qawlan miman dacaa ila allah nin hadlaa ninka ugu wanaag badan ayaa ayadan caawa noo sheegaysa 3 shardi ayuu leeyahay awalan dacaa ila allah ilaah buu dadka ugu yeeraya ilaa hayrillaahi ugu yeeri maayo wuxuu soo qaadayoon eebba ahayn male wuxuu leeyihi ha la aqoonsado oo ha la barto oo ha la rumeeyo oo ha la raaco oo ha la caabudo oo ha la cuskado oo ha laga cabsado cid kaleba ma sheegayo waa kow laba waxamila saalixan afun inuu ka hadlaa keliyata maaha isagii naftiisa camal saalixa ayuu samaynaya wixii faraa'ida salaadii iyo zakadii iyo soomkii iyo xajkiina waa gudanaya haalitan muslimnimadii ayaa qiimi la leh oo uu ku faanaya oo wuxuu leeyahay ilaaha muslim iga dhigay ayaa mahad idaylkeed leh inanii min almuslimiin buu leeyahy oo islaamnimada unbaa keligeed waxla marka 3 tilmaanood ilaah buu dadkii ugu yeeray wixii farad ee la amrayna waa gutay islaamnimadiini buu ku abtirsaday muslim baan uu leeyahy qabiil ma sheegayo qaws ma sheegayo dad ma sheegayo dal ma sheegayo wuxuu leeyahay inanii min almuslimiin qofka shuruuddaa laga helay ayaa qof hadla ugu wanaag badan kolka dadka ku rumoobayana kow waa rususha iyo nebiyaasha hawshoodii baa sidaa wax kale rasuulkuu sheegi maayaan allay ku barayaan aliimaanu saxiixu waalcamalu saalix kolkaa derajada koobaad alambiyaau waalmursaluun ayaa gashay derajada labaad alculamaau ayaa gashay derajada saddexaad almujaahiduun midda afraadna almu'adinuun wa khaamisatan alwucaad dadka waaniye wacdiya 5 darajaan idiin sheegay kow waa nebiyaasha iyo rususha labana waa culamada 3na waa mujaahidiin 4na waa mu'adiniin 5 dadka wacdiyow intaba waa miman dacaa ilallah intaba tilmaantan ayay ku jiraan ninkan aadaanka dhawaaqaya ilaah buu dadkii ugu yeeraya kaalay tukaduu leeyahay ka wacdinayana waa sidoo kale kan jihaadaya waa sidoo kale culamada kutubta akrin waa sidoo kale nebiyaashu hawl kalaba male qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waman ruuxeeba axsanu ka wanaag badan qawlan hadal af looga hadlo miman yaa ruux ka wanaag badan dacaa addoommada eebba ugu yeeray ilallah eebba weyne ugu yeeray oo wacamila sameeyey saalixan camal suubano faraa'id gutay wa qaala dabadeed yidhi inanii aniga min almuslimiin yaan ka mid aha yidhi yaa hadloo ka wanaagsan allahuma laa ma jira qofkaasi qofka hadal wacaysa kolka xasanada iyo sayi-ada xasano waataynu nidhi waxay camimaysaa wanaag idilka sayi-ana shar bay camimaysa xasana maxaa ugu weyn laa ilaaha ila allah sayi-ana maxaa ugu weyn alkufru wa shirku ayaa ugu weyn kolkaa marka hore labadooda ma sina walaa tastawi alxasana wanaagu lama sina wala sayi-a laadaa ziyaadaa wasayi-a ma sina haddaad iyaga labadooda loolan u samaysidna waa lamid xasanada nafteeda ma sina sayi-aduna ma sina oo xasanadu kelimatu tawxiid iyo salaad farada iyo sunno ma sina tan faradkaa qiimiga badan sayi-aduna saasay u kala weynta oo qof muslima inaad dishid iyo inaad caydid ma sina caydaa sahlan labaduba sayi-aw caydu ma banaana dilkuna ma banaana laakiin luqunta inaad ka ridid iyo inaad arbaxa ku dhufatid ama caydid ma sina idan xasano iyo sayi-o marka hore ma sina marka labaad xasanada hoos ahaan uma sina waa kala weynta sayi-aduna ma sina walaa tastawi alxasana wanaag wala sayi-a xuma jin ma aha haddayan jin ahayn see yeesha idfac raaci bilatii midda iyo iyada axsanu wanaag badan oo markay sayi-a kugu timaad xasano raaci sidee weeye macnuhu haddii mid ku caayo iska ammaan waataynu soo marnay oo kale khudi alcafwa waamur bilcurfi wacarid can iljaahiliina waa alakhlaaqu lislaamiya xuma kolkay kugu yimaadaan xumaha ku jaazinin wanaa ku jaazi adiga oo qofka ku caaya isaga dulqaado ka ku gooya xariiri
كقبورك كوكوصايا السلام عليكم ككوكويا سي وحاجة كوعيسا كوديدا وهكذا ادفع واحد راعيسا بالتي تي هي أحسن وناك بدن السيار راعي ما حسوب حي مركب حتى لو حس كتب عديالته أو سيدا كودا كنتو أو قفك كحمية وناجزو سيدا اللقوقو قادوا متكوكو براتو وحسوب حي فايدة قوتا سايشي الذي قفك بينك هذيك هي وبينه بسكد هذه أي عداوة على تيلي كأنه وحن قنايا ولي قرابه حميم كجعل قفك الحماك وسمايي ادوانك وكرم مريسي وحاهبالا ضمير هدولي عبرت إنه لغاها كوينايو وحققوي ولا تجربيي كأنه وحن قنايا إساق ولي قرابه حميم كجعل لكن وعدك ذاتك أولا صورة قلماها قف إيمان كباتي أي حماها اللحمية اللقاية ونقنا قدبنايا وإلا ذاتك إنتي سبضا مايا سيدا ترادت بايضيري وما يلقاها خسلا لما كل ميو وإنت حما لقو قدبيو ونقل دممريو وما يلقاها لما كل ميو إلا الذين ذات أيوم بالا كل ميو سفروا تلغات كان سفر قفك هدوياي يقاريا هذيك له markii la xumeeyo kululaanaya isna usbu daadinay salama kulmiyo ila alladina dadmaan sabaru dulqaatay wama yulaqaa salama kulmiyo ila duu xawdin dheef midu saaxiiba cadiimin wey oo qofka haleelaya waa qof ayaan iyo cawo ka batay oo bayaxawow saalixu salafu saalixu dadkii fiificnaayee hore qofka xumeeya way ka abaal sheegan jireen waxay oran jireen abaaluusan ogeyn buu ii sameeyey waa maxay abaalku dhankii eebbuu i mariyey ilaan ilaah subxaanahu watacaala daa'iman maca almadluumiin qofka la dulmay ayaa rabbi miciisa yahay daalim miciisa maaha idan waxaa weeye dulmiga iyo xumahan lagu geystay waxay ku gaarsiiyeen rabbi in safkii lagugu daray kolka abaal baad ku qabta in lagu dulmo abaal baad ku qabta laakiin garo وما يلقاها فلما كل ميو خسر قيمك بدن إلا ذو حوض دافكو صاحبه عظيم وين هذه مركز هذه الدين تادوكو قارسية إيمانك إن أضحميهين اللي غضوا القادتي لنك إبانا مرتد أجري أبال ألا كسوكتي هذه عقلقاك إيمانك أقون تادوكو قارسيسو شيطان باك عندك عقلو فنك أو كل حقا لقايا ما يسكي عليسي فرتوكو ساري شنت ما سارتي markaa sidii shaydaankii laysaga celin lahaa si uusan kaaga minjaxaabin ajirka yaa ilaah kuu sheegay subxaana faqaala caza min qaa'il waimaa yansakannaka hadduu ku waswaasiyo min ashaytaan shaydaan xaggii nasqun kuna talagal shaydaanku jinni insiba waa noqonay aabbaha ama walaalka ama adeerka ama aqrabu nnaasi ilayka mid ahalnimo kuugu soo dhowaanaya hadduu ku yihaa war ninkan haddaadan maanta iska reebin weligaa ku dayn maayo iska dhici ninkan isla shaydaanka ajrigiibuu ku diiday kolkaa jinni ha noqdo insi ha noqdo kan ajriga kaa minjaxaabinayo ee ku abaabulaya waxaa kaaga filan inaad alle ka magan geshid waimaa yansakannaka hadduu ku waswaasiyo oo fadiiladii iyo saburkii taxamulkii iyo gobanimadii hadduu min ashaytaan shaydaanku waswaasiyo nasqun mid ku waswaasinaya ama jinni ama insi fastacid billah كالنفتي ساعة راية حتى ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلكو كهورينايو بيكاغانا كعينايو هوري ديبكا استاغايو وضحن كوشاغايو إيا حنتا إيا فعل قادشو أعوذ بالله حتى ترى كمبو حار رايو بل كهوري كلكو بوغا أعوذ بالله ديب دنبالو أركي ماي ورمحاتا أيقو ترى ما شيطان باناي مركاتي واي اللوبايا إساقا دقال كالكو قاداي ورسوادير كامي أبو كامي مركز من الشيطان إلى ذا ما أنا شيطان في ما شيء كبعضي كل كواحد لقوا شيء جني ينسب كارون كل لقوا لا تكلموا كأنت تقويسا فاستعد مغنقل بالله يا أبوين إنه أبنا هو أبا سمع الله وحلقوا هذلولا ومغلط بدن العليم وحول بواقهم بدو ومن هو حيبا أحسن كوناك بدن قولا أري
qof uga wanaag badan ma jiro miman ruuxagii yaa eray uga wanaag badan ma jiro dacaa u yeeray addoomaha ilallaahi eebbaweyne ugu yeeray wacamila camal falay saalixan camal wanaagsan waqaala yidhi inanii aniga min almuslimiin baan ka mid ahay yaa ka wanaagsan ma jira xad ka wanaagsan walaa tastawi alxasana xasanadu meeka oo waajib iyo sunno ayay kala leedahay nafteeda wala sayi-a sayi-aduna meeka oo kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay kala leedahay kolkaa mid la arkana meeka labadoodana iskamaba agdhowa idfac waxaad raacisa bilatii midda hiya iyada axsanuu wanaag badanoo xasanada asayi-ata raaci waa baabi'inaysa haddaad dambaabto ood astakfirullah tira iyadaa baabi'inaysa fa idaa haddaad saa u dhaqantid aladii ruuxa baynaka adiga iyo wa baynahu isaga dhexdiisa ay cadaawatun xollima tiilay kaanahu wuxuu noqonayaa isaga weliyun qaraabo gacala xamiimun ku jecel buu noqonaya kolkaad la xintami weyday la tirsan weyday aad ka roonaatay hoostaadu kusoo dhacay wamaa yulaqaaha arrintaase lalama kulmiyo waa arrin culus oo qiimi badan dadku wada haleeli maayo ila aladiina dad ayuunbaa lala kulmiya sabaruu dulqaatay wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo ilaa duu xawdin dheef midu saaxiiba cadiimin weyn ee wa imaa yansaqanaka hadduu ku waswaasiyo oo adigoo arrintii haleeli lahaa min ashaytaan mid shaydaana xaggiisa nasqun waswaasin oo intiqaam iyo argudasho iyo xuma uu kuu tilmaamo fastaciid midkan dambe ee ajrigiiyo wanaagga ku dardarsiinaya billaahi eebbaweyne ka magan galo acuudu billah min ashaydaani arajiim inahu huwa samiicu alcaliim inahu eebbaweynena ku talagal huwa eebba asamiicu maqlid badan alcaliim aqoon badan wa min aayaatihi ley hadday suuraddii markaa maki tahay adiladii waaweynay ee alla waaxidnimadiisa jiridiisa cilmigiisa kamaalkiisa iyo cadamadiisa ku tusinaysay ayaa lagu hordhigay wa min aayaatihi tusaalyaalka waaweyn ee eebba ku aragsiin waxaa ka mid a alleylu habeenka wannahaaru maalinka washamsu qoraxda waalqamaru dayax intuba waa aaya min aayaatillah kolka dayaxa iyo qoraxda ay madmadoobaadeen intii suubanuhu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa ayay madoobaadeen iyagoo ku beegmay wiil nabiga dhalay oo ibraahim la oran jiraa dhintay kolka wiilkii nabiga dhintaa dayixiina madoobaaday markaasaa la yidhi waxay la madoobaadeen waa wiilka nabiga gaaridiisa hadduu warkii maqlay wuu hadlay calayhi salaatu wasalaam ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi buu yihi laa yankasifaani limawti axadin walaa lixayaati qof geeridii iyo noloshii midna mid dhashay iyo mid dhismay iyo mid dhintay iyo mid dhacay midna la bedelmi maayaan ka daaweyn mustawaha waa aaya min aayaatillah ee haddaad aragtaan iyagoo madoobaaday fafsaxuu ila allah ilaah ku carara maxaa la samaynaya intii nabigu uu nafaray 3 shay sadaqa waa nafaray salaadna waa nafaray istikfaarna waa nafaray ictaaqna waa nafaray haddaad addoommaleedihiin xuraaye salaadii tukada kusuufka iyo khusuufka istikfaar la imaada deeq bixiya sidaasuu nabiga nafaray calayhi salaatu wasalaam wamaa calaa safi shadiid fikradii nabiga uu ka jawaabaa weli dhisan oo xidig hadday dhacma dayax madoobaaday weli baa dhintaa laleeyahy ama weli baa dhashay ama boqor baa dhismay ama mid baa si noqday tii nabiga uu ka jawaabaa weli taal tii nabiga dheg waa loo dhilqin way dheg waa loo jalqin way oo la tukan maayo dayaxeennu waa madoobaan jiray qoraxdeennu waa madoobaan jirtay carruurtaa banaanka ku orari jirtay foox baa la qiiqin jiray intuu kasha la isugu yimaadaa ma dhici jirin hadday bilaabatayna ma badnay kolka kuwan waa aaya min aayaatiillah walaa siyama adduunka markan uu gabaabsi yahay haddeer oo uu dhammaad yahay waa sii badanayaan waa adilla calaa nihaayati zawaal waa takhwiif uu ilaah ku cabsi gelinayo addoommada oo uu leeyahay calaamaadkii waaweynaa ay dayaxii qoraxdu ka mid ahaayeen
هذه لما ذبي محايدين لمن كان بدل كل يدين كياريو كل مركا قفك هي قلوع إن لقتكو استقامية ضعلوا النقضون ومن آياتي على موجين كواوي ألا كواركسي وحاكم إذا الليل هبينك والنهار مالنت والشمس قرعة والقمر ضيع علامات كي كتوسينايين أي تدعبدي كلك الله علامات كان كتوسينايين لما عبودين يجب أن عبودي كوي بالله هذا لا تسجدوا أو سجودنا للشمس قرعة ولا للقمر ضيع ولا لغيرهما وحكى من المخلوقات كمذا أو سجودنا ويانو سجودنا وسجودوا وهذا سجودا لله ربك قرلوا عابدوا كليهما سجود له الذي الله خلقهن انت انصر شكل يا أبوري هبينك يا مانك يا قرعدي يا ضيعي اللي أبوري كتوسين هايين الله أو سجود إن كنتم أداتين إياه ويبوين تعبدونك وعابدون فإن استكبروا هذا يسكوين أيسيان فالذين ملائكة عند ربك أكتي كسوغا يسبحون وأمانا له أبوين بالليل هبن والنهار مال وهم إياك لا يسأمون تسبيح لا يبعويا مال وتسبيح سنايا كنوغي مايانو تفعد بيوتايو وحي آيادا كميتاي ميلاها لغا سجوده سجود تلاوها أياي كميتاي ومن آياته على موين كواوي بكو تسينايا وحاكميدا أنك هذه هنا ترى الأرض نلكي هاركيسو خاشعة يدو أنكك توقلفتي نلكي أوقلفا أنكك أي ذلك فإذا أنزلنا حتى أنت جنو بيري عليها على الأرض نلك كوركيسا الماء بيرو اهتزت ونغنغاقيسا وربط وعيليسا إن الذي الله أحياها أرض النوليي لمحيي الموتى كوي بنتين وهو نولينا إنه أبويننا على كل شيء وعلى أرك كله شاءه دوني قدير أباه ودوي ومن آياته علامات أباك تسيا وحكمذا الليل هذينك والنهار مالك والشمس قرعة والقمر ضيعة لا تسجدوا أو سجودين لشمس قرع ولا لقمر ضيع ولا لغيرهما من المخلوقات أو سجودنا ما إله إلا سجود من مدنا يا لو سجود وسجدوا وحدوا سجودا إلا أبوين الذي الله خلقهن إنت أنشور شأنك إياهون كدمانتي بابوري إن كنتم أداتين إياه أب تعبدونك وعابدون فإن استكبروا حتى إسوين إيسيان أو سجود أبديدا فالذين ملائكة عند ربك كوا وحبا ما ملائكة أباكتي سمد جوكتا أي يسبحون وفايا له أب بالليل مال والنهار هذا لبضل وهم إياه لا يسامون كمان نوغا ومن آياته علامات كيباكو عرقسي وحاكم إذا أدكو كران قدرة ديسا أنك هذيك ترى وحدو جيدا على أرض للك خاشعة إيادو أنك توقلفتي أبا رودي قيام برتي إعلان الله فإذا قرتان أنزلنا تجينو عليها على الأرض أرض كوركيدا الماء بيانا اهتزت ويلغلغ وربط ويعيشا إن الذي الله أحياها أرض النوليي لمحيي الموتى انت دمتين ونولينا يا سيد أرضي بونوليي إنه إبنا قدير ألا أوضى على كل شيء وعلى الكلمانتي كوركي شاهوا دونوا إن الذين يلحدون في آياته هل كان ذاتك آياتك كم مدحديك أي الله هدلي قل كان مسير كودين الله شيئا قال تعالى إلى وحجر إن الذين وعى يلحدون قلوا إلي في آياتنا آيات كأنك قلوا إلي أسيانا وفصير أي وشيئا بوحو يري لا يخفونا كوا مقرسونا علينا كوركناga كما قرسونا واغنايو أفمن أحد يلقى الله طوري في النار قده ميا خير في عن وانا كآيات كقلوحيي أما مسمن قفا في عن نعم كان دنبا في عن يأتي من دونه آمنا إساقوا بدبادا قبا يوم القيامة قيامة مالين تهذا إيمان دونه وانا متكان آيات كقلوحيين سيحايانو شيئا والرمية والرعي مركز عيبة تهديد كان يجري اعملوا سمية ما شئتم وحدونتان سمية تهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي لميت وحسكوت لك شان وحكستفى سمية إنه أبوين بما تعملوا
waxaad samaynaysaan basiirun eebba ujeeda inuu yahay ku talagalow ina aladiina waxaa kafaruu diiday bidikri qur-aanka diiday lamaa goorti jaa-ahum uu qur-aanka u yimid iyaguna laa yakfawna calayhim kuwaana nagama qarsoonow wa inahu qur-aanka dikriga la kitaabun kitaab eebbowe casiizun sharaf badan laa yaatiihi uusan u iman karin albaatil wax jebiya min bayni yadayhi hore ugama iman karo walaa min khalfihi gadaalna ugama iman karo oo kutub la dejiyo ayuu u dambeeyey mid ka dambaynaya oo nasakhaya ma jiro mid ka horreeyey oo la laamayaana ma jiro isaga ayaa wixii kutubaha idaylkood liqay wuxuu nasakhay iyo wax ku dhex jiro tansiilun dejin wey min xakiimin alla murti badan xaggii laga dejiyo xamiidin la mahdiyo wey tasliya markaa rasuulka la safargeliyey maa yuqaalu lama oran laka adiga rasuulkaa ilaa ma hadal unbaa lagu yidhi saaxir iyo kadaab iyo kaahin iyo majnuun iyo shaacir erayadan lagu yidhi maa kii un wey qad qiila hore loo yidhi lirusuli rusul yaa loo yidhi min qablika adiga hortaaw ina rabbaka adiga rabbiga laduu makfira dhaafid buu u saaxiib yahay oo dhibaatada kugu dhacaysa eed u dulqaadanaysaa lagugu dhaafaya ama haddii kale kuwaan ku dhibaya ayuu hanuunin kara oo soo islaamaya oo markaa loo dhaafaya waduu ciqaabin sidoo kaleu ciqaabna uu saaxiib yahay ciqaabkaasoo aliimin laxaw badan oon la xamili karin walow jacalnaahu haddaan qur-aanka ka yeelo ama kitaabkii qur-aan haddaan ka yeelo acjamiyan luqada cajamigaa ku soo degay oo iyagaa yidhi qur-aanka cajami ha laga dhigo kolkaa tacanuji edab daro ayay u leeyihiin wa ilaa hadday kii carabiga ahaa rumayn waayeen cajami rumayn maya ee meeshaa mucaaraday ka wateen waatan mucaaradadii laqaaluu waxay odhan lahaayeen lawlaa fusilad maan la kala dhigdhigo aayaatuhu aayaadkiisa oo waxaan cajamiga ee isku qasan kala garan mayne maan la kala dhigdhigo oo mar waxay ku sheegi lahaayeen cajamigu cadamulfasaxa mar labaadna deelqaaf nebiguna ma carabiba qur-aankuna ma cajamiba aacjamiyun qur-aan cajamiya iyo wa carabiyun nebi carabi ah xaggee lagu arkay dhihi lahay qul waxaa tidhaha rasuul allow huwa qur-aanka liladiina dadka ama carab ha noqdeen ama acaajim ha noqdeen aamanuu rumeeyey hudan hanuun buu qur-aanka u yahay wa shifaa-un caafimaad buu yahay qur-aanka waxaa la wixii rumeeyey oo dhan reeruu yahayba caafimaad iyo hanuun buu u yahay waaladiina waxase aan laa yu'minuun qur-aanka rumaynin fii aadaanihim dhagayaalkooda waxaa ku sugan waqrun culays wa huwa qur-aankii calayhim korkooda caman indhala-aan buu ku yahay arki maayaan ulaa'ika kuwa yunaadowna waa loo yeeray min makaanin meel baa looga yeeray baciidin fog galbadow walaqad waxaa dhaba aataynaa inaanu siinay muusaa nabi muuse alkitaab tawraad baan siinay fakhtulifa waa la ysku khilaafay fiihi fii tawraat sida qur-aankaba la ysugu khilaafay ee dadna u rumeeyey dadna u beeniyey ayaa tawreedna sidoo kale la ysku khilaafay wa inahum iyaga la fii shakin ayay minhu qur-aanka uga sugan yihiin mushrikiin muriibin weyn man camila qofka sameeya saalixan camal wanaagsan falinafsihi ayuu u camal falay waman asaa qofka xumaan falana facalayha naftiisa korkeeda ayuu u xumo falo naftiisii buu baabi'iyey wamaa rabbuka adiga rabbigaa subana ma aha bidallaamin alla dulma ma aha lilcabiid addoomaha haba yaraatee eebba dulma ma ahaw ina aladiina wax yulxiduuna qalloocinaya fii aayaatina aayaadkanagay qalloocinayaan yamiiluuna biha waa leexinayaan fayu'awiluunaha calaa gayri ta'wiiliha waxayan aayadda sheegayn ayay u fasiranayaan ulajeedadana liibtaali xaqin inay xaq buriyaan ayay rabaan aw ixqaaqi baatil waxaan wax ka jirin inay meel mariyaan daraaddeed bay aayadda uga qalloociyeen ina aladiina waxa yulxiduuna qalloocinaya fii aayaatina aayaadkanaga qur-aanka laa yakfawna ma qarsoona calayna annaga eebbaweynaha korkanaga kama ay qarsooneen waa ognahay ee afamanacad yulqaa la ridi doono fi naari naar gudaheed waana ka aayaadka qalloociyey miyaa khayrun fiican ama mase man qof miyaa fiican yaatii iman doona aaminan isagoo naar ku rid ka badbaaday yowma alqiyaama
qiyaamada maalinteeda wahuwa almu'min ka aayaadka rumeeyey ee raacay wey isagoon qalloocin icmaluu camal fala maa shi'tum wixii aad doontaan kusa talagala inahu eebba weyne bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan qowl iyo ficil basiirun eebba ujeedo arka inuu yahay hoos idinka abaalmarin doono ina aladiina waxaa kafaruu diiday bidikri qur-aanka lamaa goorti uu jaa-ahum qur-aanka u yimid lahum waciidun shadiid iyaguna goodi daran ayay leeyihiin wa inahu dikrigay diideen la kitaabun waa kitaab qoran oo qur'aana casiizun sharaf badan oo tiiriya oon la loodin karin laa yaatiihi uusan imanayn albaatilu wax buriya min bayni yadayhi hortiisa ka iman kari maayo walaa min khalfihi gadaashiisana ka iman kari maayo waa tiiri sa uga iman karaya waaba tansiilun dejine min xakiimin alla maamul wanaagsan oo murti badan xaggii baaba laga dejiyey xamiidin la mahdiyo eebbe oo wanaagga uu addoommadiisa u sameeyey adduun iyo aakhiro ayaa lagu mahdiya maa yuqaalu lama odhan laka adiga rasuulka ilaa ma hadal maahaana wax kale qad qiila loo yidhi lirusuli rusulyaal min qablika adiga horta ina rabbaka adiga rabbigaa suubane laduu makfiratin dhaafid addoomaha loo dhaafo ayuu u saaxiib yahay waa alla dulqaad badan laa yucaajilu lcuquuba calaa mustaxiqiha aan ku dadejinin waduu ciqaabin xanuujin buu u saaxiib yahay aliimin la xabisow walow goor jacalnaahu anuu kitaabkii ama dikrigii ka yeelo qur'aanan qur-aan acjamiyan luqada cajamigaa ku soo degay haddaanu ka yeeli lahayn laba ictiraad bay keeni lahaayeen midka koowaad waxay odhan lahaayeen lama fahmaayo waa isku dardaran yahay war cad maaha ta labaadna waxay odhan lahaayeen waa maxay deelqaabka maxaa loola jeedaa in nabiguna carabi yahay qur-aankuna cajami yahay kolka intaasay meesha ka wadeen goortay dalbanayeen ay lahaayeen naga daa qur-aankan carabigaa noo keen qur-aan cajami ah laqaaluu waxay odhan lahaayeen lawlaa fusilat hallaa buyinat maa la caddeeya aayaatuhu aayaadkiisii ma cadda ay odhan lahaayeen acjamiyun aqur'aanun acjamiyun afkaa cajamiga ku yimid wa nebiyun carabiyun u dhashay maxay yihiin qul waxaad u tira huwa qur'aanka isagoo carabi ah liladiina dadka aamanuu rumeeya sawaan kaanuu acaajim ha noqdeen ama carab ha noqdeen hudan hanuun buu qur'aanka u yahay wa shifaa-un caafimaad buu u yahay waaladiina waxa anse laa yu'minuuna rumayn ama carab ha noqdeen ama cajami ha noqdeen fii aadaanihim dhegayaalkooda gudahooda waxaa ku sugan waqrun culays wa huwa qur-aanka calayhim korkooda wuxuu ku yahay caman indhoolannimo arki maayaan waxba ulaa'ika kuwaana yunaadowna wax loo yeerayay lamid yihiin min makaanin meel looga yeeray baciidin fog walaqad waxaa dhaba aataynaa inaanu siinay muusa nebi muuse alkitaab tawraad baan siinay faاkhtulifa waa laysku diiday fiihi fi tawraat fa minhum man aaman wa minhum man kafar kama اkhtulifa fi lqur'aan sida laysugu khilaafay ee qaarna u rumeeyeen qaarna u beeniyeen ayaa tawreedna ka dhacday walowlaa kelimatun haddaan kelimadu jirin sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa ka hormartay oo meesha lagu xisaabtamayo inay aakhiro noqoto haddaan kelimadaa jirin laqudiya waa la dhammaystiri lahaa baynahum dhexdooda oo kuwa beeniyey tawreed iyo qur-aanka saacadaasaa la baabi'in lahaa kuwa rumeeyeyna waa la badbaadin lahaa laakiin meesha lagu kala baxayo inay aakhiro noqoto oo ayaantaa dambaysa ayaa eebba gartay kelimadu waata walowlaa kelimatun haddayan jirin sabaqad hormartay min rabbika rabbiga xaggii ka hormartay laqudiya waa la dhammaystiri lahaa baynahum dhexdooda wa inahum iyaga lafii shakin shaki gudihii ayay ku sugan yihiin minhu qur-aanka ayay shaki kaga sugan yihiin muriibin weyn man ruuxa camila sameeya saalixan camal suuban falinafsihi naftiisa ayuu u camal falay waman qofka asaa-a xumaan falaana facalayha naftiisa korkeeda ayuu u xumo falay oo isagaa loo qabanaya cid kale looma hayso wamaa rabbuka suubane adiga rabbiga ma aha bidallaamin alla gardaraysta ma aha lilcabiid addoomaha alla gardaraysto maaga oo gafayan gelin dul saara ama wanaagay leeyihiin ka reeba ma aha wallahu aclam.